السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام قيارت شرفت بدن ميل والبقو دوني دعالة ذلك جوكتين وولاليهينا عايشة لايف ستايل يا محمد. وإذن له سو دواد channel كينو كسو دواد channel كينا channel كيغا أصحابتي. وإذن سلام ميل والبقو دوني دعالة ذلك جوكتين أي محمد أنكورة جينا برنامجك إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما كسو دواد ولا هنا شرفت أي قيمة له جنرال كينا عايشة لايف ستايل جنرال أو واحد لينه عاو برنامج كوميدي هاي إن لقب سنة مرقدة إيو نحدينتا قبر ولا شيء أو دبعته بدن كلا كلنتي جعل فرق بدن دبعته بدن كلا كلنتي كده قبر ولا شيء أو لا تلينايو gabar walaasheen asxaabay oo la talinaayo oo nagu nala soo xiriirtay aragna taladeeda ina inta ugu gudbino. waxaan rabaa markaas ina nala socotiin sida loola taliyo insha Allah inay qaadan doonto rajeynayadana wixii fiican oo ka anfacaha ka qaadato wixii ka anfici waayeen hadeertaas ka dhaafto anaga laakiin sida anaga fikirkeena ah nagula talinayna insha Allah taala inaan tala ka siino iyo tusaale aan ka siino sida ra'yideena aan aragno oo aan markana u duceeyno walaasheena gabadha Soomaaliyeed inuu Ilaahay guuleeyo oo u sahlo wiil wanaagsan oo saalix ah oo Ilaahay ka cabsanayo oo Ilaahay ayadana xafido reerkeedana xafido nasadeedana xafido kadibna waxa ku waan lahayn gabadha walaasheena inay mar kasta guur u diyaar garowdo inay dadaal badan sameeyso laana guurka ma ahan ganacsi ama wax lagu ciyaarayo ama guur la kala kaleysanayo waa laba qof oo dhismayso oo nolol isku darsanayso oo ku heshiinayso inay safarka isla wadaagaan. ninkana marka dooranaysid waxa loo baahan yahay mar kasta inaad ka fiiriso barnaamijyo badan. ninka waa sida adigoo kale oo safar ah oo saaniyad badan oo qaato rabo meel uu u qaato usan aqoonin. gabadha sideedaba guurka in marka hore inay doorato waxa mar walba qofka la guursanayo waa adiga, qofka wax guursanayna waa ninka. adiga hada dabacsanaa weyso dalabaadka qaar ka tanaasul weyso reerka ma dhismaayo laana wax kasta oo aad maanta ku xujeysid waxa keenayo guurka inuu cuslaado. taasna waxay tahay talada aan ku siin lahaa. midda kaleeto jaceelkaaga fara badan ee aad samaysay ee aad dhibaatada badan aad kala kulantay. marka aniga ra'yigayga ka hadlo maxamed ahaan qaladka qaarkood wuxuu ka socdaa qaasatan xaggaaga, qaadaha qaarna wuxuu ka socdaa wiilka aad jaceelka aad la wadaagtay oo aad dhibaatada badan aad kala kulantay iyo arrimaha familiga ku qabsatay. qodobka koowaad haddii aan qaybta wiilka ka hadlo, maadaama adiga qaladka xaggaaga uu ka socda ay tahay jaceyl badanna aad isla wadaagaysaan, waxaa lagaa rabay wiilka walaalkaaga ah maadaama uu kusoo bandhigtay jaceyl qofka jaceelka ee kusoo bandhigay inuu ka dhib badan yahay laana mas'uuliyad ayaad qaadaysaa. qof dhan ayaa kaaga baahan inaad noloshiisa badbaadiso oo aadan ku xirin dareenkaaga ama dalabaadkaaga qaaska ah. sababtoo ah waxaa keenaysa qofka walaalkaaga ah wiilkaaga qiimaha ee aad ku jecesha wixii aad nafsada aad u dooratay ama wiilka uu ku jecel yahay ama wuxuu la mid yahay mid ummadda kaa doortay. qofkaas wuxuu kaaga baahan yahay xanaano gooni inaad siisid, hadalka macaan, deganaasho iyo sida aad jaceelka aad fara badan aad isku qaadeen. laakiin dhibka wuxuu ka imaaday maadaama wiilkii adiga aad isguursanaysiin family oo soo dhex galay. waxaan aaminsanahay ra'yigayga dhinaca wiilka waxaan ku dhalilaa waxay tahay go'aamada qaar uu qaatay ma ahan go'aan unasadiisa ee raalli uusan ka ahayn, laakiin go'aan lagu qasbayo inuu yahay. saasay tahay adiga waxaa lagaaga baahnaa maadaama ninka dhibaataysan yahay oo familkiisa raali gelinayo, adigana waxaa lagaa rabay inaad u tanasushid maadaama ninku guursana uu yahay inaad reerkiisa la noolaatid, dalabaadkooda ama wanaagga ay kaa filanayaan aad samayso. sababtoo ah waxay tahay adiga ayaa ah qofka nabadda dhalin karo, adiga ayaa reerka dhibkana keeni kara. wiilka kaliya waxa jeclaada qofka nolosha wax ka bedelayo oo wax jeclaanayo adiga waxa taa guriga hooyada Soomaaliyeed ninka ka farxinay, carruurta ka farxinaysa, familkiisa ka farxinaysa, familkaaga ka farxinaysa laana adiga waa ka doon tahay. ilaahay wuxuu adduunku keenay
inaad ilaahay caabudo oo aad barakeyso oo aad guriga qurxiso lianna gabadha wiilkii gabadh isku fadli ma ahan hooyada waa geed la beerta miro dhalaayo la harsanaayo lianna geedka markaa adiga noqotid oo aad loo waraabiyo ummadda dhan harsanayso khilaafkaasna ma imaanayo haddii aad adiga tahay qof aad u raxmad badan ma imaan lahayn khilaaf haddii aad tanasulaal badan aad samayn lahayd haddii aad aaminsan tahay sida adiga aad tahay waxaa ku heshiinay inaad guri gooni aad idejiyo maadan ku fikirin waalidkiis inuu raaligeliyo adigana maku raaligeli karo lianna bawarka waalidka uu isticmaalayo waxaa ka weyn ka adiga isticmaalaysid lianna kii waalidka kaa weyn ma rabo waalidkiis wuxuu ku qancinayo hadal adigana hadal kugu qancis ma keeni karto laakiin jaceylkaaga wuxuu burburuxa ka mid ah bar kasta waxaad isku dayaysaa awoodda bawarka ee reerka isticmaalayaan ina adigana awood u isticmaashid lianna waxaa keenaya waxay tahay qood kaa weyn markaa isku dayda inaad la dagaalantid qasab waaye dhaawacu kusoo gaaraya ama ciidan kaa tara badan haddii aad dagaal ku qaadidne waa ku dhaawacmaysaa wiilkana waa sidaadoo kale ixtiraam familka uu ka mudan yahay waxyaabaa aad dalbanayso sidooda kale inaad macnaha gooni ku dejiyo ama reerkaaga lala dego taas waa inaad u raacdaa wiilka familkiisa gurigiisa maadaama qofka la guursanayo oo adiga reerkiisana kamid noqonaysaa ma ahan in familkaaga keliya laga mid noqdo taasna waxay tahay qaladka badan ee imaanaya waxay tahay gabadha marka la guursanayo waxay tahay inuu reerkaasoo wato sida reerkiisa ay ku qanacsan yihiin oo asaga ku qanacsan yahay maxaa keenayo ninka aad guursanayso waxay tahay dhaqanka soomaalida badan inuu ilaahay kaa siiyo olaad barakeysan lianna wiilka hooyada dhashay waxay jecel yihiin qeyrka la jecel yihiin adigana waalid ku dhalayna qeyra kula jecel yihiin adigana waxaa tahay gabar aad u wanaagsan oo qeyrka aad u jecel waxaa lagaaga baahan yahay qofkan aa u tanaasushid maadaama ay isku xijiyeen inay adiga reerka aad la noolaato adigana tala rabbi ilaah saartid meeshuu asaga ku heli laheedne aad ula seexatid lianna qofka bin aadamka soomaali waxay ku mamahdaa maslaxadaada maqaar ayaa loogu seexdaa jaceylka awooddiisa waxaa ka tambadiyey damacaagii oo ah in aad adiga dalbatay dalab qaas ah in adiga gooni lagu dejiyo adiga maadan dalban qofka aad jeceshahay sidee ku heli lahayd ama sidee nolosha ula wadaagi lahayd lianna maslaxadaada maqaar ayaa lagu seexda waxaa laga wadaa maqaariga waa nijaas laakiin waxaa lagu seexdaa daruuf maadaama oo wiilka baahida oo qabo uusan waalidka aad ku dhalay adiga waxaa lagaga baahan yahay maadaama uu raxmad iyo farxad iyo jecel aad ka raadinayso wiilka in adiga lagaa rabay inaad tanaasushid si cidda marka adiga tanaasushid inuu ilaahay raxmad kugu soo dejiyo tan kaleeto oo wiilka aan leeyahay waxay tahay gabadha maadaama aad jeceshahay oo xaqiiqda dhabta ah ay kaa tahay waxaa lagaa rabay inaad waalidka u sheegtid hooyo ama aabbo gabadhan waa jeclahay waxaana jecelahay inaan guursado anigoo been ka sheegay nafsadeyda inaad gabadh ugu kale u hogaamisaan farxadeyda ma ahan burbur iyo khasaaro unbaa kala kulmaa ee igu duceeya gabadhan si aan u guursado si aan anigana aan ugu dheeraado dhibaato dhan oo reer degan aan u noqdo ayadana waa jeceshahay anigana waa jeclahay taas ayaa laga raba wiilka muusan dhihin waalidiinta qaar ilmahooda way ka cabsadaan argagaxay ku beeraan ilmihiina ma awoodaan inay waalidka wax u sheegtaan dhibka haysta laakiin waxyaabaha qaar ee dhibaatada keena waxay tahay qalad mar hadduu dhaco waa la sixi karaa laakiin waxyaabaha aad ii sheegtay nafsa problemka inta badan dhacay waxay tahay waa isku midkii dhacay isla dhib keliya kugu dhacay jeceyl walba oo hore usoo martay dadka ma qaldana ee qofka qaldamo adiga leanna waxay tahay imtixaanka markaa gashid imtixaankaas markaa ku dhacdid marka hore waxaa la dhihi karaa waa ilduufid ama imtixaankiaasi qaldan u xifdisay laakiin marka labaad markaa ku noqotid waxay ku muujinaysaa in imtixaanka oo si fiican isku soo diyaarisid oo aad ku dhacdid waa aqoon darro xaggaaga adiga ka timid ma ahayna qof kale ka timid haddii cadaalad jirtataa waa aqoon darro xaggaa ka timid tan saddexaad oo wiilka khasaarada aad kala kulanto ka mid ah oo macnaha dhibaatada aad kala kulanto ka mid ah dalabkaaga ayaa ka awood badan jeceylkaaga macnaha haddaad waxaas ii samay karin
li'anna ima helaysid li'anna taas waxaa keenaysa Soomaali xukuma maade safaro waxna gado waxna garo qofka aad jeceshahay nolol ayuu kaaga soo tagaa adigana waa inaad nolol soo tagtid dalabaadka qaar waa inaad ka tanaasushid qofku jecel tusaale ahaan aniga markaan helay Caaisho haddii aan dhibaato badan u mari lahayn ma heli lahayn ma aanan heli lahayn farxad badan oo maanta aan haysto erayo badan iyo dabeecado badan iyo aan raadinayay ee igula hadlayso kulul maanta nafsadeeda waa ku nimcaystay adigana waxaa lagaga baahan yahay qofka aad jeceshahay maadaama gabar raashiya tahay oo aan khayr kula jecelahay qofka aad jeceshahay waa la dugaaliyaa dhaxantaa laga celiyaa ra'yigaa la siiyaa qalbigaa loo dhisaa waxaa la tusaa inaad tahay qofka kaliya ee dhaxantiis dabooli karo waa inaad tustaa garabkiis inaad taagan tahay waa inaad tustaa inaad garabkiis taagan tahay waa inuu markuu xanuunsan yahay aad ka farxisaa markuu dhib gaaro waa inaad garabkiis taagtaa waa inaad isku daydaa dhibaatadiisa xalisid li'anna qofka markuu dhibku ku nool yahay wuu gubanayaa maadaama familkiisa culeys saareen adigana dalabaad culus aa saartee marka dad kale ay fikrad ku siiyaan ay ku dhahaan reerkaas hala degin oo kale markasta dadka carruurta aad u dhashay ixtiraam qaasa ay kaa mudayin amba la deg amba hala deganaanin inta badan Soomaalidan dalabka waxaa badan macnaha wiilka iyo gabadha inta badan gabadha waxay dhahaan dadkayga familkeeda ka fikirta laakiin muhiimaddu waxay tahay adiga lagaga baahan yahay labada familba inaad isku keento adiga safiir u ah adiga dhacaankaaga labadan cani ka imaanayaan adiga hooyana waa ka socotaa dhanka wiilkana aabbaa ka socdo intaasna waxay kulmayaan jirkaaga nimca ka dhalanaysa barwaaqa ka dhalanaysa waxaa lagaga baahan yahay maadaama gabar raashiya Soomaaliyeed aad tahay waxaan tala ahaan ku siinaa waxay tahay inaan erayada qaar aan kugu dhahay inay yihiin canaan laakiin aniga waxaan jecelahay khayr iyo wanaag aan kula jecelahay si aad maanta aniga farxadda aniga xaaskayga iyo carruurtayda aan farxadda aan ku noolahay maxaa yeelay haddii maanta ay tanaasul lahayn aniga maanta heerkaan ma gaari lahayn haddaan aniga u tanaasul lahayn heerkaan maanta aan ku noolahay maana ku noolaan lahayn waxaan taas ku gaarna waxay tahay waa samir qaladka qofku markuu ka dhacana waa inuu saxaa gabadha markasta jaceylka daacadda oo ku jirto weligeed ma guul daraysato calafka waa goonidiis laakiin qofka bini aadamka ninka ragga wuxuu ugu jecel yahay haweenka ugu raxmad badan ugu dulqaadka badan ugu codka gaaban raggana waxay aad u neceb yahay haweenka muranka badan haweenka hadalku gubo hadalka xumaantiisa ka sheekeeyo haweenka ismada badan oo kale intaas maxaa keenaa waxay tahay ragga laguma na sheegto sida aad jecesha adiga lagula dhaqmo qofka kale kula dhaqan qofkan waxay tahay family markii la arko adiga maanta cilada aad sheeganayso familigiisana labada cilad inay kala sheeganayaan laakiin waxa xalin kara waa adiga gabadhii labada dhinac ka imaanaysid waa qofka wax dhala adiga waa qofka awlaada xalaal inuu ilaahay ku siiyo oo barakeysan labada dhinac ay u duceeyeen inuu ilaahay korkaaga ka soo saaray carruur barakeysan oo labada dhinac la isaga duceeyey waxaana ku leeyahay insha Allah bidin ilaahi kariim wiil wanaagsan oo aad ku qanacsan tahay oo jeceshahay oo ilaahay wajigiisa ku jecel adigana ilaahay wajigiisa aad u jeceshahay raxmad ku dareensiyo wixii aad soo martay oo dhan kaa masaxo nolol cusub ku bilaabo qalbiga sama ku dajiyo u duceyso ku duceyso weligaa khayr wax kasta oo wanaag aad shaqaysatan waad ku liibaanaysaa iskuna day weligaa wax aad jecesha adiga qoraalkaa la jeclo ma aha inaad kali nafsadaada ka fikirto li'anna qasaarada waxa keena waxay tahay qofka kali nafsadiisa ka fikiro guuldarro ku dhamaystaa qofka walaalkiis ka fikira laakiin horumar ayuu gaaraa walaashii waxaan ku leeyahay ilaahay kurbada kaa qaado ilaahay ku guuleey waxaan ku leeyahay guul iyo gobonimo farxadii ciise ku noolow hooyo Soomaaliyeed ilaahay kurbama tuso gabar wal kastoo jecel inay guuleysatana ilaahay xalaalaha u sahlo wiil kasta oo jecel asagana guur ilaahay gabar xalaalaha u sahlo dadka is jecel ilaahay isku barakee kuwa carruurta isku dhalayna ilaahay isku barakee muslimiinta oo dhan Allah xafido gabdhaheena walaalaheena xunna Allah soo hanuuniyo wiilasha gabdhaha qayaanayna ilaahay soo hanuuniyo hooyo walbo Soomaaliyeed guuligaba ku noolo barnaamijkeeni intaas kuma soo koobi karno mar walbana waxaan jecel lahay qoys walba inuu dhisnaado war walbana waxaan jecel lahay wanaagiina farxadiina iyo horumarkiina waxaan leenahay qoys walba Soomaaliyeed farxad iyo caafimaad ku noolaada
وبرنامجكي حساب بدنا إلى مانها أو أن مانتا وجهليني قبل ولاش الصوماليات اللي باترين بدن كل عي إن لقولت هليو الله الشيء هذا إذا كانوا حرجينا إنه لسوتلين دونتين وحرقينا تنوعنا كفكر كينا بس laakiin idinka fikirkiina hoos ugu soo qora gabadhaas wixii ay sameyn lahayd hoos inaa ugu soo qortiin comment ahaan like share subscribe hayloobina asxaabteyda qaaliga ah dad ka faa'iideen la wadaaga asxaabteena qaaliga qofkii noo baahan wuu nala soo xiriiri karaa insha Allah taala lambarkeena YouTube waa ka heli kartaa Aisha Lifestyle dad qortid aad hoos u sii raacid fiidiyoyadeena waa ka helaysaa insha Allah taala waxaa idin leeyahay asxaabe وإذن جعلنا هرت دمانتين آدي آدن أمهات سنتين سات كومنتيغا شارتا سبسكرايبتا نوغو دادين واننكيغا مهد علنا يا أصحاب تقاليغا وحانتين داد أكتين قاليكو وإذن جعلنا هاي waxaan rabaa alfkii inaan ku tarsado dhammaan asxaabta qaaliga waqtigooda qaaliga nasiiha aad baan ugu mahad celinaa mar walba email bay dunida calada ay uga nool yihiin insha Allah barnaamijkan waa barnaamij sii socon doono mar walba waxaan jecelnahay asxaabteena daawadayaashana qiimaha badan inaan wax walba eega jecel yihiin inaan u diyaarino hadday tahay talin dadka barnaamijyo noo haayane hadday tahay fikir barnaamijyadan waxaan kusoo dari karno haddii wax fikira noo haysiinne soo dhawaada aad qalbi furan iyo gacmo furan aad baan idin soo dhaweynaa aad baan idin jecel lahay intaas aan ku darsaday haye asxaabe khayr badan aan idin rajeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadino